Hadda sanadka inta ka dhiman 2 bilood, koors haddii aad isku daysid koorso cusub inaad bartid, ha ahaatee koorsadaasi waxyaabaha xirfadaha la xiriira sida graphic design-ka, video editing-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Aqliiji. Ciwaankan wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaad u samayn kartaa productivity qurux badan sanadkan. Waxaan ku jirnaa 2025 dhammaadii mareysa 2 bil ayaa ka xigta. Sidee ayaad u samayn kartaa sanadkan inta ka dhiman productivity ama wax soo saarka cilmi ahaan wax walba aan jadwal degan si sanadka soo socda wax cusub aa u baratid. Haddii aad leedahay fikrad aad u qurux badan, inta badan ku dadaal inaad xooga aad saartid, sababtoo ah inta badan waxaa la sameeyaa qofka markuu rabo in productivity-giisa ama wax soo saarkiisa hor u kaco, wuxuu sameeyaa sheyga uu yaqaanay ayuu joogteeyaa. Kadib wax cusub ayaad baran kartaa, kadibna waxyaabaha cusub aad baratidne kadib waxaad samayn kartaa inaad ficil u bedeshid. Hadda sanadka inta ka dhiman 2 bilood, koors haddii aad isku daysid koorso cusub inaad bartid, ha ahaatee koorsadaasi waxyaabaha xirfadaha la xiriira sida graphic design-ka, video editing-ka iyo barnaamijyada animation-ka ama soft skills-ka, wada hadalka ama public speaking, inaad qof wax aad ka dhaadhicisid. Waxyaabo kale aad baran kartid waxaa ka mid ah time management-ga, sida loo maareeyo waqtiga, digital marketing caadiga ah. Qofka inta badan xirfadahaas uu bartay marnaba kuma khasaaro. Waxaa laga yaabaa berrito inay ku anfacdo ama qof kaleeto walaalkaa inaad ugu faa'iidaysid. Aniga kuma dhahay wax walba isku baro, laakiin hal shay diiradda haddaad saartid waxaa laga yaabaa inaad wax badan aad ka soo mari dhaleysid. Haddii aad dhahdidne wax walba isku barna, midkii hore u haysidne waad dhuminaysaa, midka cusubna hore haddaad baranaysidna wax fiican kama gaaraysid. Laakiin sheygaa hore u taqaanid haddii aad samaysid joogteyn ama mar walba ku dadaalid inaad wax badan aad samaystid, waxaa laga yaabaa berri inaad mustaqbal fiican aad ka samaysatid. Mid kaleeta aad samayn kartid haddii aad awood aad u leedahay kulli inaad isku baratid oo kulligoodna aad wax walba lagaga baahdo ugu yaraan 50% inaad wax ka qaban kartid. Haddii aad dhahdid wax walba waan daadshay, berri adeeg u imaanaysaa. Qofkan shaqooyin badan uu qaban karaa, wax walba uu qaban karaa, qof walba cunaysay ku soo saaraysaa. Keliya qofka u sheeg sheygaan uu qaban karaa, sheygaan ka badan wax dheeri ah kuma qabo, awooddaas uma lihi. Qofku wuu ka leexanaa, laakiin halka shay aad taqaanid haddii aad ku dadaashid inaad wax badan aad ka samaynaysid, berrito inta badan waxay noqonaysaa mid oo qofkaas shaqo fiican uu qaban kara. Waxyaabaha aan rabno sanadka cusub inaad ku dadaashid intaan la gaarin inaad samaysid jadwal. Jadwalkaas aad ku dhaqmaysid. Tusaale ahaan haddii aad tusaale ahaan kaaga soo qaato qof shaqeeyaa tahay, waxaa ka shaqeysaa shirkad ku dhawaad 10 saacadood. Saacad la soo galay saacad waxaa jira xilli salaad iyo qada isku dhex jirto iyo salaad kaleeto iyo xilli ugu dambeysa bixitaanka. Intaas maxaa samayn kartaa markii laga tago kow subaxdii hore markaa xaafadda aad ka tagtid oo shaqada aad tagtid inaad jadwal aad samaystid oo jadwalkaasi maalinta aad ku shaqeynaysid. Tusaale ahaan jadwalka waa inaad 3 u qaybisid maadaama 3 gelin aad shaqeynaysid. Gelinka hore shaqooyinka hard work aad ku culus inaad qabatid, sababtoo markaas maskaxdaada fresh ay tahay, wax cusub aad qaban kartaa, wax cusubna ku soo kordhin kartaa. Qaybta labaad medium ka dhig shaqooyinka ay is leedahay waxyaabaha hadda loo baahan yahay inaad qabatid oo isla markii aad ku gudbisid inaad samaysid. Meesha ugu dambeeya waa small oo ah shaqada markaas hal shaqo lama shaqo oo markaas loo baahan yahay inay berrito xitaa subaxdii hore qayb aad gudbisid inaad iska dhamaystid. Intaas waxay noqonaysaa jadwalka maalintii aad ku shaqeyn lahayd. Intaas markii waxaa kaaga soo baxay space ah wax aad qaban kartid. Kadib jaanis kaleeto aad ugu faa'iidaysan kartid ayaa samayn kartaa. Tusaale ahaan koorso cusub haddii aad baran kartid inaad baratid saacad ama 30 daqiiqo cilmi ahaan nafsadaada inaad ku baratid ama wax kale cusub inaad samaystid sida in luqad aad baratid, barnaamijyada xirfadahan oo haddii xirfad kaleeto aadan aqoon hal xirfad keliya aad taqaanid, xirfad kala dheeri ah oo barnaamijkan aad ku shaqeynaysid waxyaabo la related ah ama la xiriira haddii aad sii baratid waxay kaa caawinaysaa
jaanisada kale kugu soo baxaan inaad ka faa'iidaystid. Xirfadda aad taqaan tusaalaan graphic design aad taqaanaa waa wadna ku shaqeysaa. Waa inaad ku darsan kartaa barnaamijyada digital marketingka oo online ah sida Facebook management, TikTok management, YouTube, waxyaabaha platformska wax cusub iyo wixii hore u jirin oo shaqeynaya inaad taqaanid managementigeeda, sida wax loo xayeysiiyo, sida promotionka loogu sameeyo. Waxaa kaloo baran kartaa barnaamijyada video editingka sida muuqaalada inaad hagaajisid, aad qurxisid, kadibna qofkan promotion lacag aad ugu qaadatid video walba ah edit gareynaysid qarash inaad u bedeshid. Taas waxay kaga saacidaysaa adigoo qof dhisan oo xirfadda aad bartay ku shaqeynaya ayaa naqanaysaa. Sanadka hadda intuusan dhammaanin jaaniska ka faa'iidayso oo wax cusub baro si adiga kuu anfacdo qof kale ka dambeeyana anfacdo. Haddii aad samaystid inta badan qofka waxyaabaha uu sameeyo oo inuu barto la rabo inuu sad goolal badan ay ku degsan yihiin, hadafyo ay ku degsan yihiin. Sanadka inta ka dhamaanaya waa inaad jadwal aad ku shaqeynaysid aad degtid. Intaas ku dadaal mar walbana waxaad samaynaysaa productivity-gaada ama wax soo saarkaada, jadwalkaada. Jadwal haddaad degsatid waxaa laga yaabaa berito inay kuu anfacdo. Haddii dhahdidne keliya jadwalkayga intaan uu kooban yahay, laakiin waxay kaa anfacaysaa jadwalka markaad saas u degsatid shaqada aad ka shaqeynaysid inay xadidnaato. Tusaale ahaan qofka ku yimaado shaqadan ii qabo lagu dhaho jadwalkaad tusinaysaa, jadwalkan ayaa yaala maxaan sameeyaa. Jadwalka haddii macquul tahay in la joojiyo oo shaqo emergency ay tahay aan laga maarmin in shaqadan laga hormariyo waa inaad qabataa. Haddii ay tahay in shaqo dib loo dhigi karo oo beri inaad qabatidna waa inaad beri aad qabatid. Aa u sheegtay shaqadan jadwalkan aan ku socdaa, jadwalkan haddaan ka baxone shaqooyin qaarkood hadda aan rabo inaan dhameeyo ima suurtagelayso inaan hadda aan ka dhex baxo. Laakiin haddaad dhahdid jadwalkan ii diyaarsan, haddii wax aan ku bedelaa qof kale shaqadan lagu wareejinayo macquul haday tahay ku wareeji, tan cusub aa qabanaa. Waxay qayb ka naqanaysaa shaqadiisa oo jaam kugu jiri qof kale shaqadaas qabanaya inuu qabto kadibna isla markii uu shaqada automatically u fududeey. Intaas waxay ahaayeen waxyaabo qodobo aad u muhiimsan oo inta badan aan ku dadaalay in maskaxdayda ay ugu jirto inuu walaalaheed qof walbana ka faa'iidaysan karo inaan kordhiyo. Waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalo ama warbixin aad u qurux badan inaan soo jeedin doono mar walbo. Aan ku dadaali doono tayada iyo codka iyo muuqaalka insha Allah. Adigana channelka subscribe, like, share si asxaab badan ay u gaaraan muuqaalada mar walba aan soo gudbino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.